haddii aan warbixin yar idinka siiyo dugsigu waa cusub yahay. Dugsiga waxaa la bilaabay 2013 buu dhismihiisu dhammaaday, waxaana la furay 2014. tirada ardayda ee dugsiga lagu bilaabay waxay dhan tahay 86 arday ayaa dugsiga lagu furay, 71 gabdho wiilal ah iyo 15 gabdhood ayaa lagu bilaabay. barayaasha lagu bilaabayna waxay ahaayeen 12 bare oo ay ku jiraan maamulaha iyo maamul ku-xigeenku. tirada guud ee macallimiintu waa 12, 11 waa dhidig, waa lab, hal waa dhidig. tirada fasalada waxbarashada lagu bilaabay waa 4 fasal weeyaan, oo kala ah 9aad, 10aad, 11aad iyo 12aad. waxaa lagu sameeyey cagaarin dhir dhan 150 geed ayaa lagu beeray. waxaa qabsaday oo fiicnaaday 140 geed, 10 geed oo keliya ayaa xumaaday. howlaha la qabtay furitaankii dugsiga waa la furay dugsiga xilligii loo baahnaa ayaa la furay. hawshaasina way fushay. waxaan sameynay markaa diyaar garow, wacyigelin baan sameynay, qaabilaadda ardaydana waan sameynay. qorshahayagu wuxuu ahaa in 90 arday lagu bilaabo, hase yeeshee waxaan ku guuleysanay 86 arday inaan ku bilowno 95%. barisbarashada diyaarinta qorshayaasha 2 qorshe, qorshaha magaranaysa dugsiga iyo qorshaha barayaasha, labadaba waan diyaarinay. hawshaasina way fushay 100% sidii loogu talagalay way fushay. diyaarinta sabuuradaha, diyaarinta tabaashiirta, diyaarinta manhajka 10 maado ayaan helay, 90% way fushaan oran karnaa markaas. howlgelinta macallimiinta 10 macallin ayaan howlgelinay, iyaduna sideedii bay u socotay. qaadista imtixaankii termkii koobaad waxaa magaranaysa qorshahayagu intaan diiwaangelinay waxay ahayd 86 arday, 2 arday baa drop out noqday, 84 ayaa gashay imtixaankii. fasax gaaban kadib dib ayaanu iskuulkii u bilownay termkii labaad, qaadida imtixaankii termkii labaad. deegaanka iyo bilicda dugsiga, bereynta dugsiga 200 oo geed ayaa qorshaha noogu jirtay, 150 geedna waan beeray. maxaan ku dhahay 10 geedna way naga dhinteen, markaa waxaa odhan karaa 75% ayaan ku guuleysanay. hogaaminta dugsigu waa mid furfuran, xidhiir la leh bulshada, hogaaminta khibrad u leh xalinta caqabadaha jira. qalabka dugsiga in yar baan idiin soo dhaafay. dugsigu waa dugsi hoy ah, waa dugsi la seexdo. 86 arday dugsiga way galaan, macallimiintuna way galaan, markaa uu ka yar duwan yahay dugsiyada kale. qalabka dugsiga haddaan idin bilaabo, kuraasta cuntada waa 60 kursi, miisaska cuntaduna waa 15 miis. kuraasta waxbarashada 175 kursi ayaan haysanaa. kabadho waxaan haysanaa 1 kabadh, 1 xabo. furaashyo ardayda ku seexdaan waa 60, go-yaal 120, bustayaal 70, saxamo 60, kilaadhi 3 kildhi, koobab 65, rooto 2 rooto oo biyaha lagu shubo, distiyo waa 4 xabo, baafafka magaranaysa alaabta iyo waxaa lagu maydho waxa weeyaan 2 xabo, baaldiyadu waa 2 xabo, qaadooyin ama mulqaacado ninba siduu yaqaano 62 xabo. guryaha seexadka waa 4 qol oo waaweyn weeyaan. guryaha shaqaalaha waa 3 qolalka shaqaaluhu seexdaan, waa 3 ay macallimiintu seexdaan. xafiisyadu waa 2, fasalada wax lagu barto waa 4, maktabad ama library ninba siduu yaqaano waa 1, bakhaar waa 1. dhinaca raashiyooga haddaan eegno, ardayda iyo fasalka halkii fasal 22 arday ayuu noqonayaa raashiyoogu. ardayda iyo kursiga halkii kursi 2 arday ayaa ku fadhiisanaysa. ardayga iyo baraha halkii bare waxaa kusoo hagaagisa 8 arday. ardayga iyo buugta halkii arday, halkii buug 2 arday ayaan nidhi. miisaaniyadda dugsiga isticmaalkeeda, nooca kharashka, mushaar waxaan u qaadanay 1,008,000
maxaan ku idhahday howlfulin oo waa lacagta raashinkii waxaa lasoo siiyey 1,700,000 wadar guud waxay isla noqotay 2,708,000 caqabadaha nagu hor yimid haddaan galo dugsiga oo aan ilaa hadda aqoonsi heer deegaan ah ka helin taas waa caqabaddan hor taagan gaadiid la-aan oo iyaduna wixii khudaarta lagu keenayay iyo waxyaalahaas iyadana aanaan haysanin biyaha oo marmar naga go-a qalabka electroniga oo aanaan dugsiga u haysan manhajka qaarkii oo aan jirin sida historyga fasalka 11 iyo 12 iyo balaasma la-aan intaas ayaan kusoo gabagabinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu